ogtahay waxtarka iyo faa'iidooyinka uu leeyahay geedka dhagayarahu aan ku xasuusiya inaad koob caano ah ku darsato hal qaada barhkeed oo ah geedka dhagayaraha oo la daqiijiyey kadibna aad cabto habeenkii xilliga hurdada ka hor isla markaana aan ku sheego 17 faa'iido oo ay jidhka u leeyihiin caanaha iyo dhagayaraha la isku daro ee wakhtiga la isticmaalo waxaanay kala yihiin kow waxay yeeshaan xaddi badan oo ah vitamin D iyagoo ilaa xadna kor u qaada caafimaad qabka lafaha kana hortaga burburka ku yimaada lafaha laba waxay si cajiiba kor ugu qaadaan caafimaad qabka beerka kaliyaha iyo guud ahaan bawrku jirta saddex waxay yareeyaan xanuunada laga dareemi kara kala goysyada jidhka waxaanay hoos u dhigaan oo khafiifiyaan xanuunka rheumatismka afar waxay dawo cajiiba u yihiin qanji xanuunka iyo qufaca soo noqnoqda shan waxay wanaajiyaan shaqada dheefshiidka waxaanay meesha ka saaraan calool istaaga lix waxay caloosha dawo uga yihiin dibirada badan iyo gaastariga toddoba waxay dawo iyo ka hortagba u yihiin xanuunka bawasiirta sideed waxay beerka ka hortag uga yihiin inuu yeesho subaga kolestaroolka sagaal waxay qofka ka ilaaliyaan dhiig yaraanta waxaanay jidhka siiyaan faytamiino badan oo muhiim u ah jidhka toban waxay wanaajiyaan shaqada maskaxda waxaanay kor u qaadaan xasuusta qofka koob iyo toban waxay kor u qaadaan caafimaad qabka ciridka iyo ilkaha labiyo toban waxay jidhka siiyaan firfircooni badan waxaanay hoos u dhigaan daalka iyo tacabka badan saddex iyo toban waxay u wanaagsan yihiin caafimaad qabka indhaha waxaanay ka hortagaan caadka ku samaysma indhaha afar iyo toban waxay habeeyaan sonkorta dhiigga ku jirta waxaana yareeyaan fursadaha qofka uu ku qaadi kara xanuunka sonkorowga shan iyo toban waxay kor u qaadaan difaaca jidhka waxaanay dawo ka yihiin qaniinyada qaar ka mid a xayawaanada yaryar lix iyo toban waxay wanaajiyaan caafimaad qabka maqaarka waxaanay meesha ka saaraan finanka kasoo baxa wejiga toddobiyo toban waxay dawo ka yihiin hurdaxumada waxaana yareeyaan miisaanka badan ee jidhka waana koob caana oo wax yar la diiriyey kadibna lagu daray hal qaada barhkeed oo ah geedka dhagayaraha oo la daqiijiyey